السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني بدنا waxaa dhacda ama laga yaabay in dhici doonto qof aad wanaajinaysa muddo yariisa aad wada socoteen isfahmayseen wax walbana ismeel aad wada dhigteen qofkaasi saaxiib buu noqon karaa qof aad saaxiib tihiin ama qofkaasi wuxuu noqon karaa qof markaas xiriir ka dhaxeeyo kadib qofkii waxaad ka dareemaysaa cagajiid ama qofkii waa weynaysaa xiriirkii oo dhan walaaltinimo ama xiriirkii saaxiibtinimo ama xiriirkii kale ee labadiin idinka dhaxeeyay buu goonayaa maxaa qaldan hadaba waxaan ku xasuusinayaa waxa jira wax la yiraahdo aqoonsi ergaani meel ku qoro mar walbana maskaxda ku hay qof hadii uu ku soo maro qofkaasina wanaag oo idinka dhaxeeyo kadib adigoo aadan qaldaneen qofkii uu ka cagajiido ama noloshaada uu ka fogaado adigu naftaada haliidin naftaadana ha ka soo qaadin inay wax ka qaldan yihiin mar walbana ha isdhihin qof walbo markaasi wax idin dhexmara muxuu kaaga fogaadaa ma adaa qof qaldan waxa laga yaabaa qofka kale inuu qaldan yahay waayo laba qof baa qaldan marka hadii aad dareentid in dhankaagu aysan waxba ka qaldaneen maskaxdaada waxa aad gelisaa qofkaani muddada kooban kula socday ee saaxiibtinimada idin dhex martay ama xiriirkii idin ka dhex maray maxaa ka ceyriyay waxaad xasuusataa waxa ay raadinayeen aqoonsi dadka qaar badana kalsoonida ayaa ka soo lumta waxa ay raadinayeen kaliya qof ku yiraahdo qof wanaagsan baa tahay qofkaani noloshaada marka uu ku soo biiro marka uu ku wanaajiyo qof damiir leh oo caqli leh oo qalbi leh baa tahay qofkii waad u sheegaysaa inuu wanaagsan yahay markii aad u sheegto qofkaani inuu wanaagsan yahay waxa dhismaysa kalsoonidiisa marka ay dhisanto waxa uu dareemayaa in meesha uu taagan yahay ama shakhsiyadaada in iidan isku qalmin taasi ayaa sababaysa qofkii inuu cararo ama qofkii ka fogaado ujeedadeedu ma aha qofnaha ku dhihin qof wanaagsan baa tahay ee ujeedadu waxa ay tahay qofku marka uu ka tago maskaxdaada haliidin adiguna buuq ha isku furin hana isdhiin maxaa ka qaldan waxa aad niyada gelisaa inuu ahaa qof raadinaya kaliya in la yiraahdo waad wanaagsan tahay qofkina waa ku tiri waa wanaagsan tahay waxa dib u xasuusan kartaa inta mar aad ku tiri waa wanaagsan tahay marka aad ku tiri waa wanaagsan tahay sida uu farxad u dareemay qofku marka aad ku tiraado waa wanaagsan tahay hadii uu farxad dareemo waa qof noloshiisa aan kalsooni ku qabo laakiin hadii aad qofku ku tiraado waa wanaagsan tahay uusan waxba ka soo qaadin uu ku mahad celiyo kaliya waxa aad dareemaysaa qofkaasi inuu qof caadi yahay laakiin qofku marka ay ku weyn tahay wanaaga aad ku tilmaamaysid waa qof markaasi kalsoonida ay ka soo luntay waa dareemi kartaa aqoonsiga ereyga la yiraahdo uma isticmaalina kaliya qof markaasi saaxiibtinimo kula wadaagay ama qof xiriir kula wadaagay waxaan u isticmaali karnaa adiga shakhsiyadaada ay daawanaya waxa laga yaabaa inaad mararka qaar wax sameynaysid wax wanaagsan sameynaysid aad u sameynaysid in lagu yiraahdo qof wanaagsan baa tahay taasina waxa la yiraahdaa aqoonsi waxa aad raadinaysaa in lagu aqoonsado qof wanaagsan baa tahay hadii aan lagu dhihin qof wanaagsan baa tahay waxa aad sameynaysid waxa laga yaabaa inaad xumaysid waxa laga yaabaa inaad ka caajisid waxa laga yaabaa inaad adigu macnaha xanaaq ka qaadid marka si taasi isu u dhig mar walba niyadaada waxa aad gelisid waxa aad sameynaysid waxaad u sameynaysaa shakhsiyadaada iyo kartidaada hadii wanaagsanaadaan waa meesheeda hadii waa wanaagsan tahay lagu yiraahdo waa meesheeda hadaan lagu dhihin waa meesheeda waa waxa adigu ka yimid awoodan aad gelinaysid sameyntaana waxa ay ka timid shakhsiyadaada markaasi waxaad noqonaysaa qof wadadiisa heesta oo socda hadaba mar walba waxa niyada ku haysataa hadii uu qofku wanaajiyo mar walba haysadin qofkaani waxa uu ku wanaajinayaa wanaag aad u qalantid waxa uu raadinayaa laga yaabaa inaad adigu wanaag ku tilmaamto tusaale ahaan ilmaha aadka u yar markii ay wax qabtaan waxa ay iska gadaan markii wax qabanayaan waalidka si loo dhaho waad wanaagsan tahay hadii waa wanaagsan tahay aan lagu dhihin waxa laga yaabaa ilmahaasi inuu cara ka qaado xanaaq ka qaado mar walba niyada waxa aad ku hayso noloshaada oo qurux badnaato maskaxdaaduna ay aad u shaqayso qofkaani asxaabta kula ah ama qofkaani xiriirkiisa ka dhaxeeyo ma qof raadinaya aqoonsiba mise waa qof raadinaya wanaag taasoo sababaysa inaad aad iskugu soo dhawaato hadaba hadii maanta qof uu ku wanaajinayo ha isdhihin waxa uu ku wanaajinayaa aqoonsu adiga ka raadinayo kaliya mar walba niyada waxa ku haysataa qofku markuu bilaa sabab kaaga fogaado ama uu kugu xumeeyo ama aad u arki weysid saaxiibka haduu raba ha noqdo ama qof xiriir idinka dhaxeeya ha noqdo kaliya niyada waxa aad gelisaa qofkaani bilaa sabab buu ka tagay waxa uu raadinaya aqoonsigina waa siisay laakiin qof markaas xiriir ka dhaxeeyo ama saaxiibtinimo idinka dhaxeyso ha ku dabaqin ha isdhihin qofkaani waxa uu ku wanaajinayaa aqoonsi inuu ka helo hadii aad videogan ka heshay waa saaxiibka Shaahid Biisani oo ku dhahaya asxaabtaada la wadaag meel walba aad dunida ka joogtaan Allah idinku xifdiyo. Assalaamu calaykum.